maanta waxaan rabnaa inaan dul istaagno daawo isticmaalkeedu aad u soo batay waayahan, taasoo aysan bulshada u kala saarneen waxyeelada daawada ay leedahay haddii qofka uu aad ugu isticmaalo. daawooyinka marka la iska isticmaalo ayadoo uusan dhakhtar kuu soo qorin ama goob caafimaad aan lagaaga soo qorin, waxay kuu keeni kartaa saameyn caafimaad daro marka aad joogtaysid in muddo ahna aad isticmaashid. dhammaan asxaabta ahaankan ku saaxiibne iyo inta nagu cusub waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. inta nagu cusub si gaara waxaan idinkaga codsanaa inaad subscribe-ka kanaalka noo saartaan intaadan ka mashquulin, waxba kaama dhibayso in subscribe-ka ay saartay. maanta waxaan rabnaa inaan si gaara u dul istaagno daawooyinka loo yaqaano corticosteroids. daawooyinka corticosteroid farmacology ahaan waxaa loo isticmaalaa cuduro badan oo jirka bani aadanka marxalado caafimaad daro ku keene. haddaan qofka loo soo qorin ama isbitaal aan loogu soo qorin inuu isticmaalo ay noqoto si joogto ah, waxay keenaysaa waxyeelo caafimaad. daawooyinkan corticosteroids waxay u kala baxaan noocyo badan. formiska ay u samaysan yihiin waxaa ka mid ah tablets, syrups, injections, creams. magacyada daawada corticosteroids ama noocyada u kala baxda waxaa ka mid ah hydrocortisone, methylprednisolone, prednisone, dexamethasone, betamethasone iyo kuwo kaloo dhawaayahan soo baxay kuwaasoo kasii xoog badan kuwii hore. daawooyinkan waxaa loo isticmaalaa marka ay jirka marxalad caafimaad daro dhanka inflammationka ay saameysay ama inflammatory disorders ay soo baxeen, gaar ahaan allergic reactions marka uu qofka xasaasiyad uu qaado dhanka maqaarka. sidoo kale waxyaabaha kaloo loo qaato waxaa ka mid ah cudurada neefta ama xiiqda, asthmatic cases ayaa loo qaataa daawooyinka corticosteroids. cuduro badan ayaa lagu daaweeyaa, waxaana ka mid ah kansarka noocyadiisa kala duwan sida kansarka loo yaqaano leukemia oo dhiigga ku dhaco. sidoo kale waxaa kaloo daawadan loo isticmaalaa cudurada autoimmune disease, gaar ahaan rheumatic arthritis, cudurada lafaha ku dhaco, kala baxda iyo joint iyo in badan in la isticmaalo looguma talagelin daawadan. qofka waxaa loogu talagalay quantity yar inuu ka qaato oo doos yar. marka ay tahay neeftana dabcan qofka dependent ayuu ku noqonaa, daawadu waa uu ku tiirsanaana cudurka neefta. balse waxyaabaha kale ay ka mid yihiin caabuqyada jirka ku dhaco, gaar ahaan maqaarka ama waxyaabaha xasaasiyadda ku imaado rhinitis oo kale ama allergic reactions oo kale. laakiin waayahan dambe waxaa soo baxay in daawada ay noqoto mid la iska qaato farmashiyaasha laga helo, goobaha caafimaadna dabcan ayadoo aan laga soo qorin. waxay leedahay daawadan waxyeelo aada u tiro badan. dadka la nool cudurada daaha, gaar ahaan cudurka macaanka ama sukarowga, haddii jeer looguma talagalin, sababtoo ah waxay sameyneysaa inay aada u badiso levelkii sokorta, taasoo waxyeelo ku ah qofkana ku saa-idini karta sokorta. sidoo kale daawooyinkan waxyeeladooda waxaa ka mid ah inay aada u qalado metabolismka, habdhiska dheefshiid ee kiimikeed jirka uu sameysanayo, taasoo ee la arkayo in daawada ay burburineyso lipids badan iyo proteins badan. sidoo kale daawadan marka ay jirka ay ka badato waxay keenaysaa fluid retention, in excretion badan ay saari waayaan keliyaha blood filtration badan inay sameyni weyde, in wixii wasaqa jirka u baahan in laga bixiyo inay ka bixi waayaan, taasoo jirka dib ugu soo noqonayo. qofka jirkiisa waxaa lagu arkaa in barar badan uu soo gale qeybaha hoose ee adimaha, lugaha, cagaha hoose. sidoo kale qeybahan wejigana in lagu arko barar badan uu soo galay, taasoo loo yaqaano edema. marxaladaas ee sababaysa fluid and sodium retention, daawooyinkan prednisolonka ama dexamethasonka
qofka markuu aada u joogteeyo waxay saa-idinaysaa in aldosteronka ama adrenal glandka ay aada usoo daayaan cortisol hormonka, taasoo ayadana damage gareynaysa ama waxyeeleynaysa dhammaan qeybaha kala duwan ee endocrine systemka ama dhaacaamadii sidii loo soo deynayo levelskay ahaayeen. sidoo kale waxay kale waxyeeleynaysaa marka uu qofka isticmaalo testosterone hormonka inuu hoos u dhaco, qofka raganimadiisana ay aada u liidato. dadka sida aadka u isticmaala daawadan corticosteroidska noocyadeeda kala duwan, gaar ahaan marka laga hadlayo cosmeticska, bumaatooyinka iyo waxyaabaha cremiska lasmariyo, waa meesha ugu badan ee side effectska gabdhaha ay ka qaadaan ama haweenka. sababtoo ah daawadu waxay sameynaysaa wax loo yaqaano moon face, in gabdhihii ay wejiga ay ka bararaan oo ay gabdhaha ay noqdaan kuwo wejiga soo kuusan oo daamankeeda aada usoo baxsan yahay. taasina waxay ku timid inay jirka uu ku batay waxa loo yaqaano fluid retention, in jirka uusan iska saari karin biyo badan banaanka, keliyaha aysan saari karin. sidoo kale adrenal glandka hormoneska ay soo deynaan ayagana aada u badatay, taasoo ay sababtay in qofka wejigiisu uu isbedelo, uu noqdo weji weyn oo aada u ballaaran, loona yaqaano moon face, sida dayaxii oo kale inuu u ballaartay wejigii. marxaladda labaad ee lagu arko gabdhaha aadka u isticmaala ama daawooyinka isku cadeeya ha qaataan oo waxaa ku dhaco wax loo yaqaano calcium deficiency and vitamin D deficiency, inuu jirkoodu ku yiraahdo in ay helaan wax calcium ah iyo vitamin D. waxaana la arkaa in lafahooda uu ku dhaco wax loo yaqaano osteoporosis. qofka daa'ima daawooyinkan corticosteroidska hadduu jabo way adag tahay siduu ku raysto, sababtoo ah jirkiisa waxaa ku yaraaday calcium intake iyo vitamin D absorption. sidoo kale daawooyinkan corticosteroidska qofka daa'ima ama joogteeya waxaa lagu arkay in maqaarkiisa uu aada xuubka ugu dhacayo, uu tin uu noqonayo, uu aada u khafiifsan, kaasoo aan lahayn hab difaaca fiican, ay ka dhinteen dhammaan epidermiskii maqaarka difaaca u ahaayo, collagenkii iyo fibroblastigii. qofkaas haddii jeer marka uu dhaawac yar gaaro ama nabar yar uu ka soo baxo, sida uu ku raysto ama sida nabarkaas uu ku caafimaado, boogtaasna ay ka rawnaato, waxay qaadanaysaa muddo aada u dheer, wayna adag tahay inuu sida uu ku raysto. dadka daa'imo daawooyinka corticosteroid nabraha jirkooda kasoo baxa ama dhaawac marka uu gaaro, waxaa la ogaaday inuusan dhaawacaas ka raysanin, sababtoo ah waxaa aada u yaraaday immune cellskii difaaca jirka ka qayb qaadanayay, kuwaasoo ay yareeyeen hormoneskan cortisolka lasoo deynayo, adrenal glandka uu soo deynayo. sidoo kale dadka isticmaala aadka u joogteeya daawooyinkan corticosteroidska waxaa lagu arkay cudurada dhimarka, in qofkii cabsi badan uu dareemayo, hurdadii ay ka tagayso, welwel iyo walbahaar badan uu ku jiro. daawada marka uu qaato uu dareemayo nafis badan, in xanuunadii ay ka yaraadeen. dhammaan waxyaabahaas aan kasoo hadalnay waa saameynta iyo waxyeelada uusan qofka ka caafimaadi karin marka uu daa'imo daawada corticosteroidska. ay ka mid yihiin sidaan hore usoo sheegnay betamethasone, dexamethasone, prednisolone, hydrocortisone, qeybaha kala duwan ee cosmeticska. daawo walbo cosmetics ah waxaa arkaysaa inay ka mid tahay daawadan loo yaqaano corticosteroids, iyadoo waxay ugu jirtaa as ee liquid ama kareem ahaan ay ka sameysan tahay. waxyeeladeeda intaysan kugu dhicin ama aysan ku saameynin, aadan ka kicin caafimaad daro saaidna ay kugu dhacdo, waxaa muhiima inaad marka hore aada qaadatid talada inaad daawada iska joojisid, inaad ka hortagtid daawadan sida aada u isticmaali lahayn, aada ka fogaatid, inaad life stylekaaga wax ka bedeshid sidaysan daawada kuu qabanin. anigoo ah doctor maxamed liibaan maxamed, aada iyo aada aan kaga mahad celinaa dhageysiga iyo la socodka kirwiska iyo videoska aan soo geliyo.
waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.